dhulkina haddaan difaacan dhalinyaraha beeskaashan haddaan ciidamadu dhaqaaqin shacabkuna dhiiragelin miyay nabadda la lahay dadka Soomaaliyeed wuxuu dareemay al-shabaab inaysan marnaba u danaynayn ummadda Soomaaliyeed inayna u naxariisanayn khasab inay ku qaadanayso hantidoodii diin aan sax ahayn oo khaldan in lagu soo wayba ka soo tageen hadda waxayba gaartay in la yiraahdo wax bixin waa lagu dilayaa dadkaas way sabaabuleen waxaana dhammaan amray xoog dalka Soomaaliya meel kasta joogaan gobol kasta joogaanba dadka Soomaaliyeed ee sabaabulay in gacan lagu siiyo lagu taakuleeyo wixii la taakuleyn karo la iska celiyo nimankaas daalimiinta ah ee mataqaana nabadiidka aan marnaba ogoleyn ummadda Soomaaliyeed inay nabad hesho ciidanka xoog dalka Soomaaliya waajib bay ku tahay inay taakuleeyaan dadkaas is abaabulay shanteena farood gacmaa ayay ku shaqayn kartaa shukada meeskaga rognaa suurtagal maaha sanadkii 5 jeer in zaka laga qaado diin dhigaysa oo islaamana ma jirto mana aan maqal 10 sako oo isdaba socoto maaluub leeyahay maanta bixi waxa garanaysa inaysan ahayn diin ويحوما حديدي وانا قدونيو حقيقي دوسيي كويت الله idaacadda codka ciidamada qalabka sida SNA radio